taariikhda qotada dheer leh iyo waayaha sharaabka Coca-Cola iyo soo ifbixiisii ayaynu maanta idiin soo gudbin doonaa. taariikhda cabitaanka Coca-Cola waa mid bilaabmaysay sanadkii 1885 shakhsi beerley ahaa oo lagu magacaabi jiray John Pemberton ayaa hirgeliyay kambanigan isagoo dadaal dheerna u galay inuu meesha ka saaro cabitaanka morphine oo waqtigaasi dunida caanka ahaa. John Pemberton waxa uu ku guuleystay dagaalkii uu kula jiray cabitaanka morphine suuqyada caalamkana waxa qabsaday cabitaan cusub oo lagu magacaabo Coca-Cola iyadoo warbaahintu ay qortay dacaayad raqiis ah oo ay lahaayeen Coca-Cola waxa uu keenaa xanuun madaxa ah iyadoo lagu dariyay alcohol balse Pemberton dacaayadahaasi hoos uga maydhigin xawligii ay shirkadiisu ku socotay. cabitaanka Coca-Cola waxa uu ka kooban yahay geedka kookaha gaar ahaan caleentiisa loo yaqaan narcotic cocaine. cocaine-tuna waa xaddiga ugu badan ee cabitaankani uu ka samaysan yahay. sidoo kale cocaine waxa ay ku jirtaa cunooyinka iyo cabitaanada aynu isticmaalno sida kafeega. maadada cocaine waxa ay soo ifbaxday sanadkii 1924. muuqaalkani waa mid muujinaya ama se tilmaamaya samaynta cabitaankani iyo sida uu qofka cabay uu u bedelayo. Coca-Cola samayntiisa waxa hoos yimaada shirkado badan oo ruqsadda samaynta iyo iibkaba ka haysta Coca-Cola. wadan kastana waxa ku taala warshad Coca-Cola ah oo sanad kasta dakhligeeda qayb ka mid ah siisa xarunta dhexe ee shirkadda Coca-Cola. magaca cabitaanka Coca-Cola waxa curiyay Asa Candler oo ahaa maayo soo maray gobolka Atlanta gaar ahaan Georgia dalka Mareykanka oo ay wada shaqayn ka dhaxaysay John Pemberton. Candler waxa aad arkaysaa meelo badan isagoo magaciisu ku xusan yahay. John Pemberton markii uu dhintay xaaskiisa ayaa la wareegtay gacan ku haynta iyo maamulka shirkadda Coca-Cola. qoraarada uu ku jira cabitaanka Coca-Cola waxa farsamaysa shirkadda Tennessee ee ka farcantay qaybta suuqgeynta ee kambaniga Coca-Cola. xarunta guud ee shirkadda Coca-Cola waxa ay ku taalaa magaalada Atlanta ee gobolka Georgia waana magaalada uu Pemberton uu ka bilaabay ganacsigiisa. cabitaanka Coca-Cola waa mid haysta dhammaan suuqyada dunida oo dhan. qof kasta oo caalamka joogana waa mid xiiseeya cabitaanka Coca-Cola. sanadkii 1935 cabitaanka Coca-Cola waxa cabayay 250 ka mid ah dadyoga dunida ku nool. sanadkii 1950 waxa ahayd waqtigii ugu horeysay ee qascadda daasada lagu shubo cabitaanka Coca-Cola. sanadkii tagay 2017 waxa lagu qiyaasaa dadka cabaa Coca-Cola inay yihiin 5%. saad la socoto barnaamijyada dambe subscribe garee.